waxaad samaysay qof bili aadmiya oo aan la dilin baad wejigiisa photograph ku samaysay oo dhiig iyo balaayigtaas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز روان السلام عليكم. أنا صاحب شرفت لي كحنا جنرال كيغا وأنا وعبد الإبراهيم يوم مقال عصب. فضل هديت أمريكا جورس جنرال كصوب وقتي سبسكرايب صار مقال كنا لايك صار كومنتين كصوبيحي. عادي بدون ما سنتي دمهاتين من الباجوكتان. هذا واحد فيليا مقال كنا ما أنت واحد وكسب سنية هاي إنها تكسو أخذتين عوانك أما تيتلك. رهانتي واحد جرتي إن مع المهن وكتشوي بوقشو أبوانك جلاجة الصومالية دي عنك أبوان صوران. magaalada Buuhoodle uu ku joogay booqasho hadaba maalmaha waxa la dhexmariyay in lagu dilay magaalada Buuhoodle hadaba warka noocaas been abuurka waxa soo faafiyay wiil Soomaaliyeed ruuxantii ma garanayo meesha uu aqliga ka aaday oo qof weyn oo waalidkiyo kala uu ku been abuurto oo wiilno dhaho waalid dilay bulshadan oo simcadiisina ku ciyaaro oo dhaho dhagaxaan bay ku dileen xabadii ku eriyadeen marka hore intaan warin nagu daalin aan isla daawano muuqaalkaas waa maanta iyo muuqaal xasaasiya qodobada aanu nihayna waxa kamida mamjaajilaystihii caanka ahaa ee xaruntiisu ahayd magaalada Burco ee lagu magacaabi jiray Sooraan oo xalay weerar ciryo dhula lagu soo qaaday xilli uu ku sugnaa magaalada Buuhoodle duuduub Sooraan iyo hal abuurada iyo abwaanadii uu horkacayay iyo fanaaniintii la socotayba weerar ayaa lagu soo qaaday hoteelkii ay ka deganaayeen magaalada Buuhoodle markii ugu horeysay raxantada oo yaacaysa oo tuuraysa dhagaxaan oo shiidaysa hoteelka ayaa soo gashay hoteelka xoogaa kadibna waxa laga maqlayay gudaha Buuhoodle waa isla hoteelkee rasaas goosa oo dhacaysay waxa filayaa inaad soo daawateen muuqaalka ruuxantii muuqaalkaas dad badan baa daawaday dad badan baa ka naxay dad badan baa aaminay in lagu dilay abwaanka magaalada Buuhoodle ruuxantii waxaan ku leeyahay barada waxyaalo noocaas kala ka waato kumana fiicna waxa istaa bulsho channelkaaga waxa ku xiran bulsho kor u dhaafista 80,000 oo qof waxaad maanta u soo bandhigtid maadan waayin fadlan ka waato waxyaalo noocaas kala oo kadaba muxuu ka yiri abwaan Sooraan muuqaalkan ama been abuur hawada looga soo galiyay aan isla daawano halkan waxaan doonayaa inaan uga iftiimiyo bulshada Soomaaliyeed in yar annagu waxaan tagnay gobolka Cayn magaalada madaxiisa Buuhoodle waxaan joognay lixaadii waxaan lagu soo dhaweeyay sida ugu qiimaha badan ee qof bili aadmiya loo soo dhaweeyo waxaan baraha bulshada ugu nimi waxyaabo khaldan oo la soo dhigay taasoo la leeyahay waxa lagu dilay Buuhoodle waxaan leeyahay marka hore gobolka Buuhoodle wuxuu ka tirsan yahay gobolada ugu waaweyn Soomaaliland ugu baaxad weyn leh waxa kale leeyahay waxaan gobolada kale lahayn waayo xuduud wuxuu leeyahay Ethiopia xuduud wuxuu leeyahay Puntland xuduud wuxuu leeyahay Soomaaliya iyo Somaliland ka tirsan yahay sida awgeed cid kastaaba way timaadaa waxay ku joogtaa nabadgelyo wuxuu gobolkaas u damaanad qaatay oo ku tawfiiqay intaasoo xuduud leeyahay dadkooda inuu damaanad qaato nabadgelyadooda sida awgeed waxa markaa qof kastaana mabda u aaminsan yahay cid ku toojar garaysan maxaa halkaa u aaminsan ma jirto qof kastaaba ku aaminsan yahay xorna u yahay sida awgeed qofka soo dhigay Buuhoodle lagu dilay waxaan leeyahay waxaad shaqaystay dambi kabaa'ir oo weyn marka hore waxaad samaysay usuusnaareednimo waxaad isku cadaysay munaafiqnimo waxaad ka been kabaa'ir oo ilaahay waxyaabaha ilaahay loo shirkiyo beenta ku xigta waxaad samaysay dad islaam ah oo meel degan oo wax allaale iyo waxay sameeyeen aanay jirin oo sheekh loo shariif loo qof karaama leh baa tiri wax bay dilay waxaad samaysay qof bili aadmiya oo aan la dilin baad wejigiisa photograph ku samaysay oo dhiig iyo balaayigtaas cawaaqibkaad shaqaysatay intuu leeyahay waxaan anigu maanta aan hadalkan igu kalifiyay una sadeexay qofkii waxa soo dhigay waxaan ku leeyahay inta aanay cawaaqib xumo kula kulmin wax calaamad degdeg aanay ka muuqanin oo dadka ka yeeshay inta oo dambiga inta la eg baa shaqaysatay bal duuliga horta dambiga shaqaysatay imisa qof naxay oo ka naxay Buuhoodle maxay waxa u sameeyay imisa qof ka naxay oo ninka laga maxaa lagu dilay inta aad shaqaysatay intuu leeyahay waxaan ku leeyahay haddaad si degdeg uga saari weeyo waxaad la kulmi doontaa waxaad ilaahay agtiisa ka shaqaysatay waxaad la kulmi doontaa in ay ka muuqato calaamad degdeg ah aakhirada dambigii aad qabsatay uu dambeeyo waxaan ku leeyahay waxa ma faa'iidinay khasaarad ku sugan tahay ka saar wixii waxa soo kala sameeyona ka daaya ilaahay agtiisa wuxuu ka shaqaysanina anigu waxaan ku oran lahaa
nasteexaaga weeyaan inta aad caadiga tahay hadhow intaanad isku cilkaambi war maxaad u gelisay waxa ummadan baad madax koosatay qof bini aadamaad madax koosatay ilaahay agtiisaad been kabaliga ka sheegtay ilaahay agtiisaad munaafiqiimo ka shaqaysatay ilaahay agtiisaad isku sanaareednimo ka shaqaysatay oo dad calooshooda wax isu gelisay aanay isugu jirin ka saar baan ku leeyahay haddaad ka saari weydo waxaad ka hesha annaga waxba ha naga siin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii waa gobol ama waa magaalo ku faanisa amnigeeda alxamdulilah ilaah u siyaadiyo maxay tolay waxaana ku dhihi lahaa baraada waxyaalaha noocaas oo kale ka waatoob in aad ummad Soomaaliyeed qof ay jecel yihiin oo majaajiladiisa iyo abwaanimadiisa inaad ku been abuurtay oo tiraahdo qofka noocaas la dilay oo halkaas lagu dilay oo bulshada sumcadda ka qaadid intaas ayaan soo bandhigay fadlada channelka cusub tahay subscribe saar haddaad hore saartana aad baad maasantahay videogana like saar comment ka soo bixi aad baad maasantiin dhamaantiin meel walba joogtaan